بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ka hadlaynaa cashar ku saabsan sidee loo qaadaa ama habdhaqanka laga rabo qofka inuu ula dhaqmo bukaanka markuu qaadayo warbixinta ururinayo. marka casharkan waxaa soo diyaarinay anagoo asxaab dhowr ah oo kala ah Maxamed Cali Garas, Maxamed Cawil Cabdi, Cabdiraxiim Xaaji Daawud, Maxamed Cumar Nuur iyo Maxamed Cabdulqaadir Khaliif. marka koowaad habka koowaad ee la rabo in bukaanka loola dhaqmo wuxuu yahay tus bukaanka daryeel wanaagsan. qodobka labaad, salaam bukaanka, iskuna sheeg qofka tahay adoo u sharaxaya magacaaga iyo waxa rabtid inaad weydiiso bukaanka. qodobka saddexaad, waxa ula dhaqanta bukaanka si adaab iyo bini'aadanimo leh adoo ixtiraamaya. afar, tus bukaanka meesha uu fariisanayo adoo u sharaxaya oo kursiga u riixaya bukaanka tixgelinayna. shan, isticmaal luqad uu fahmi karo bukaanku. la hadal luqadda gaarka ah uu fahmi karo. magaalo kasta iyo waddan walba luqad gaar ay leedahay oo qofku si khaas ah u fahmi karo. ha ku qasbin luqadaada aad adigu taqaanid. lix, u muuji bukaanka inuu kugu aamini karo sirtiisa, waayo waa muhiim si aad u ogaatid xog buuxda waa inuu kuu sheegtaa wax kasta bukaanku. toddoba, dhegeyso cabashada bukaanka si taxadir leh. sideed, qaabkee loo dhegeystaa bukaanka. muhiimadda saar inaad dhegeysato bukaanka marka uu hadlayo adoo indhihiisa ku toosinayo oo siinaya tensionkaaga iyo soo jeedkaaga. ka fogow inaad ku fakarto jawaab marka uu bukaanku hadlayo. waa habka bukaanka loo dhegeysto waa qodobada ugu muhiimsan. ka hortag waxyaabaha dhalin kara inuu bukaanka ka carqaladoobo hadalkiisa, sida inaad ku mashquusho akhrinta buug, charges, akhbaar iyo inaad ka jawaabto telefoonada kuu soo dhacaya. sideed, oo qodobada laga rabo inaad raacdid habdhaqanka loola dhaqmo bukaanka. ku bilow xog ururinta su'aalo furan sida maxaa sababay imtixaanka, maxaa sababay imaatinkaaga halkan. ka fogow inaad ku bilowdo su'aalo jawaabtoodu noqon karto haa ama maya. taasi waxay dhalin kartaa inuu bukaanku ku jawaabo isagoon fahmin su'aasha, kuna horseedi karta inaad heshid xog qaldan. yes ama no. ka fogow. Thanks waa mahadsantihiin.